wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha meel kastoo joogtaan iyo goor kasta idin taaba ku soo dhawaada waa mar kale iyo hoyga wararka caalamka waa maalin jimco wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay bishu waa 5 waa bisha December bishii sanadka ugu dambeysay horraanteedii ayaan weli ku jirnaa maantana waxaan noo hayaa qodobo kale oo aad iyo aad aan isleeyahay waxa weeye kuwa ugu doorka roon leh waxa maanta dunida ka dhacay qodobka ugu horeeya waxaan eegi doonaa arrintii Ukraine iyo Ruushka wadaxaajoodkii socday iyo halka uu marayo waxaan eegi doonaa oo kale booqashada Putin ee India ayaan iyadana si fiican u eegi doonaa haddii Ilaahay idmo waxyaabaha ku hareeray ku gadaaman aan raadee iyo waxa ay xambaarsan tahay ayadana waan eegi doonaa ugu dambeyn waxaan eegaynaa haddii Ilaahay awood daro noo ogolaado Israa'iil iyo nimankii aan raadee Falastiiniintii halka ay kala marayaan aan ku horeeyay booqashada waxaan rabaa inaan ku hormaro Putin booqashadan waa booqashadii tobnaad muhiimad gaar ah ay leedahay booqashadii tobnaad weeye ee uu ku tago waddanka India halkaas waxaad ka arkaysaa muhiimadda India ay Ruushka u leedahay amaba Ruushka uu India u leeyahay hadba dhanka doonta ka eega waxyaabaha soo dhaweynta barnaamijka horeeya ayaan uga hadalnay laakiin waxyaabaha miiska saaran oo wadaxaajoodka iyo wada hadalka ayaan rabnaa inaan si durugsan waxyaabihii soo baxay inaan diiradda saarno maanta waxaa la furayaa RT India ayaa xarigga laga jarayaa waa telefishinka Russian television leeyahay afka Ingiriisiga ku hadla ayaa laga furayaa India taas lafteedu arrin aad iyo aad u weyn saad la socotaanba RT waa wadamada reer galbeedka inta badan waa laga mamnuucay adiga haddii la fiirsana internetka laga fiirsado ma ahe gebigeedaba way ka saareen qadka oo dhanba TV runtii arrimaha Ruushka aad iyo aad looga daalacan jiray soo waxa kala jira asna Russia Today oo asaga laftiisa aan qadka laga bixiyay laakiin internetyada laga helo mararka qaarna aan la helinba iyadoo ku xiran dalka aad joogto waxa miiska saaran oo kale wada hadaladii heer wasiir ayaa bilaabanaya maanta wasiirada gaashaandhigga labada dhinac iyo ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee labada dal wasiiradooda ayaa wada fariisanaya soo qorsheynaya wixii la saxiixi lahaa iyo wixii la islaafgar lahaa India aad iyo aad laba arrimood oo aad u weyn ayay runtii danaynaysaa waa mid inay hubka Ruushka iyaguna lagu sameeyo India aad bay u danaynayaan qaasatan diyaaradda Sukhoi 57 ka leeyahay ee nooca casriga oo runtii naadirkaba ah tooshkana lagu raadinayo ayay doonayaan India iyo S400 kana waxay la doonayaan in India lagu sameeyo laakiin arrin waxaa jirta iyadana taa uga sii weyn India saa la soconaba sanadihii hadda la soo dhaafay waxay bilowday in ay dayax gacmeedyo dirto oo runtii ay aad ugu guuleysatay haddana ay doonayaan Ruushka inay kala faa'iidaystaan arrimaha dayax gacmeedka runtii waa teknolojiyo adduunka qolo u xiraan jirtay laakiin meeshan waxaa muuqata isbedel ballaaran oo adduunka ku dhacaya ayaa muuqda isbedelkaas waxaad malaysaa xilligii uu Maraykanku dunida ka talinayay inay gabaabsi soo noqonayso amase bilowgii hoos u dhac in la gaaray wax walba say u socdaan meesha ugu sarreysa markay gaaraan hoos u soo noqdaan marka aad taariikhaha caalamka ay la soo maray iyo ilbaxnimooyinka aad hadba qolo dumaysay qolo kala bedelaysay ajita ilbaxnimadii Persia waxaa jirta tii Masar waxaa jirta tii Greek saas u soo socotay Yurub bay bahashu timid tii Yurub timidna Maraykanka aaday inkastoo Yurub lafteedu weli madaxa taagan laakiin bas cajiib la iyadana rabaa inaan
idin soo dhexgeliyo ah markaan arrinta Ukraine u imaado Yurub halka ay ka taagan tahay ayaad waxaad ka arkaysaa awoodda ay maanta ku leedahay dunida tan la isku haysto ee garabootanka iyo isbarbaryaaca bilaa sharciga ah uu ka socdo India aad bay u danaynaysaa marka dayax-gacmeedka waxay kale aad u danaynaysaa nuclearka saan ognahayba labada dal waa laba dal oo nuclear ah isku soo dhawaanshahoodu iyo horumarintu macno badan bay u leedahay dunida macno fara badan ayay dunida u leedahay waxaa muuqata in runtii horumarku uu u socdo xagga bariga kana soo noqonaya dhinaca galbeedka taas ayaa keenaya in sannadan aan hadda ku jirno ilaa bilowgeedii ilaa hadda oo dhammaad lagu jiro aan arkaynay shirarka waaweyn oo ka dhacay wadamada bariga sida shirkii weynaa ee Tianjin oo madaxda reer bariga oo dhan ruushka chineeska wadamada BRICS-ka ka soo muuqdeen waxaan xasuusanaa oo kale shirkii Shanghai Sochi waa meelaha ruushka ku taalo waa meelaha mustaqbalku xaggu ka soo iftiimayo ayaan yar rabaa inaan idin dareensiiyo waxaa haddaba jirta oo kale wasiirada kulankoodu waa kulankii 22aad waxaa la furayaa oo iyagana shir loo qabanayaa business forum ama madasha ganacsi ee labada dal muhiimadda ay leedahay ishara lagu hayo waxay tahay labadan dal waa Hindiya iyo Ruushka runtii cunaqabatayno xooggan baa saaran khaasatan India Maraykanka ayaa cunaqabateeyey laakiin wadamada bariga ahi marka aad eegto dunida intooda badan dadku halkaasi ku nool yihiin waa meelaha beec mushtarka iyo ganacsigu uu aad iyo aad uga faxayo waxayna maanta heer gaareen tiknoolajiyadii qolo gooniya ay iska lahaan jireen in maantay ay bariga u wareegtay iyadoo ka jaban waxa laga keeno galbeedka maaha keliya inay ka jabantee kana tayo fiicanba meelaha qaar markaad eegto telefoonada cajiibka ah ee soo saaro waddanka China oo runtii aan la goyn karinba qiimahooda aad iyo aad dhaqaale u ah tartan ballaaran oo suuqaana iPhone iyo Samsung ba kula jiro ood u malaysaba inay meesha ka saareen midda kale telefoonada ayaan ku keenay iPhone Samsung-ka waxaaba la leeyahay sirdoonka iska adeegsada waa la iska dhageystaa waa la duubaa hadalka meesha uu yaallo xataa dadka sheekaysanaya waxay ku sheekaysanayaan dhan telefoonku wuu duubaa marka shaki weyn ayaa jira oo qaasatan Samsung lagu dhex sameeyey oo sirdoonka Israa'iil ay ku dhex sameeyeen baa la sheegay runtiina waaba laga mamnuucay xataa siyaasiyiinta reer galbeedka laftooda in ay telefoonkaas la isticmaalo gebi ahaanba waa la mamnuuca intaas haddaan ku daayo booqashada runtii Putin oo meel aad iyo aad u wacan maraysa sida laga soo warinayo waxyaabaha soo kordha wixii la kala seexdo heshiiska la isla gaaro waxaasoo dhan waan idila soo wadaagi doonaa laakiin qodobada aan isha ku hayn doono oo aad iyo aad muhiimka u ah ayaa waxay yihiin xagga nuclearka xagga ama tamarta xagga duulimaadyada dayax-gacmeedka xagga militariga waxyaabahaasoo dhan ayaa waxaa la rabaa heer aan caadi in la gaarsiiyo India dhibaata haysato ayaan dhood markay istaabteen waddanka Pakistan hadda dharbaaxa aad u kulul baa ku dhacday waxaana soo baxday oo bannaanka la soo dhigay in runtii India aanay maaragtay technology ahaan xagga dagaalka
aan u babacdhigi karaynba waxyaabaha qalabka matalan hadda chinesku uu sameeyo oo ay isticmaaleen nimankan bakistaanta ah waa agabka militariga halkaasi waxay doonayaan inay balance gareeyaan bal xaaladdu sida ay tahay inay ka balance gareeyaan qalabka cusub ee ruushka lagu sameeyo indiya ayna noqoto technology ay u madax bannaan yihiin u gacan bannaan yihiin labada dalna ka dhahaysa qodobkaas haddaan intaas uga gudbo oo aan bal soo aadno xagga iyo ukraine dagaalku meel xun u aad maraya ruushku waxaa laleeyahay meelo badan buu runtii ka soo gudbay isagoo dagaal aad iyo aad u ba'an laysku murxay ku galay waxaan habeenka xalay ahaa lasoo idaacadaha qaar lagu soo bandhigay ama social media lasoo dhigay ciidamada ukrainiinta gacanta lagu dhigay ciidamo aad iyo aad u fara badan ayaa isdhiibay ruushku sawiradaas ayay social mediaha ku wareejinayeen iyadoo halkaas ay maaragtay gacanta ku hayaan hadday tahay agab military iyo hadday tahay askartii isticmaalaysaba duqaynta ugu daranay hadda waxay ka dhacaysaa baa leeyahay magaalooyinka odessa kherson donetsk kharkiv iyo kiev arrinta ugu daran xaalad bini'aadanimo oo aad iyo aad runtii looga dayranayo ayaa laga soo sheegayaa xaggaas iyo ukraine guud ahaanba oo ah koronto la'aan gaas la'aan qabowgiiba soo dhacay iyo arrimo mataqaanaa cunto la'aan aad iyo aad u baahsan ayaa laga soo sheegayaa waxaana ka soo socotaa laleeyahay xaalad bini'aadan oo aan la qiyaasi karin inta ay la eg tahay dhanka wadaxaajoodka iyo waawaanta hadalla kala duwanaa soo baxaya wararku isma saarna isku sina looma fasiri karo xagga iyo ruushka wadaxaajoodkii waa lagu soo guuldaraystay iyadoo lasoo guuldaraystay oo qodobadii ugu muhiimsanaa laysku mari waayey haddana markaad dhegaysato odayga donald trump iyo dj vance madaxweyne ku-xigeenka waxay sheegayaan horumar iyo guli laga keenay waxbay dadka dooneen inay ka iibiyaan inay iibsami doonaanse waxaa ka imaan doontaa shirka hadda ka socda miami oo witkoff iyo kushner halkaasay nimankii odayaashahayoo wafdiga cumarof hogaaminayay lagu hor fadhiyaa waxaa laleeyahay asbuucyo waa warka ka soo baxaya washington d c asbuucyo dhow heshiis waa la seexayaa dagaalkana waa la joojinayaa waa sida ay sheegayaan laakiin dhinaca moscow waxaa ka imaanaya waa ka duwan yihiin iyo european unionka yurub furkay tuurtay ruushkuna waaba ka daray waxa weeye arrin waxaa dhex taala labadooda runtii xaalad aan la qiyaasi karin waxa ka imaan kara yurub maadaama ay yidhaahdeen waxaan lacagtii ruushka say ku qaadan lahaayeen ayaa jawaab aad iyo aad u kulul waxaa ka yimid xaggaa iyo russia ruushku waxay sheegeen hadday lacagtaas ruush leeyaha taabtaan mid aanay aragoon maqal ayaa ka dhici doonta gabadha von der Leyen la yidhaahdo ee European madaxda ku ahna waxay leedahay ruushku luuqad aan ahayn in lala dagaalo indhaha faraha laga geliyo malaha iyo xoolihiis in la dhaco car iyo wir ayay taagan tahay baasho waxaaba muuqata Putin inuu gaaray guul aad iyo aad u weyn oo siyaasadeed taasoo ah in uu maraykankii iyo reer yurub u kala gooyey waa farsamo aad iyo aad u wacan marka uu maraykanka ka hadlayo si wanaagsan buu uga hadlaa trump buu faaniyaa hadalla fiican buu ka sheegaa wuxuu trump jecel yahay inuu mataqaanaa trump yahay libaaxa wadda adduunka inuu yahay maaragtay haddii uu joogi lahaa isagu madaxweynaha la dagaalka ukraine ba uusan bilaaban lahayn in waxaan uu biden sameeyey luqadii trump la taagnaa lafteedii ayaa moskara looga heesayaa waxaa muuqata kamanka inuu isbedelay halka yurub go'doon tahay sida aan idin rabo dibid kugu dhigana waa taas yurub waa go'doon cid wax ka weydiinaysaa ma jirto ee ukraine waana indhala adahay go'doon keliya maaha waa indhala adahay sababta indhaha ula adahayna waxa weeye waxa lagu wada xaajoonayo lama socoto taas waxaa mara ka ah
hadal ka soo yeeray maantay Zelensky oo yiri waxaan rabnaa inaan ogaano wixii Moscow lagu soo wada hadlay wixii laga ka soo baxay taas waxay ku tusaysaa in gebi ahaanba meel ay wax u socdaan iyo meel ay wax ka yimaadeen aanay shaqo ku lahayn layskana maamulnayo ruushka iyo maraykanku ay bahashi maamulanayaan waxa maragma doonta ah oo hubaal ah la xaqiijiyo meelo badan lagu xaqiijiyo ruushka iyo maraykanku inay heshiis ku gaareen inay arrintan qaybsadaan oo ay maaragtay Trump iyo Putin heshiis ku yihiin Putin oo isagana la ogyahay inuu weligiisba ruushka u shaqayn jiray sirdoonka KGB-da la dhihi jiray Sovietka iyo ninka la yidhaahdo Putin Trump nimankaas u shaqayn jiray ninka la yidhaahdo Putinna Cornel KGB u ahaa marka meeshaas waxaad arkaysaa in runtii wax badan oo dadku og yihiin laakiin aan la sheegin lagana hadal dadanna ay jiraan dhaqanka Trump oo kula dhaqmay ruushka ayaana markhaati ka ah runtii arrinta haddaan eegno xaaladdu hadda waxay taallaa magaalada Miami iyo Washington halkaasaa wadaxaajyadii ugu dambeeya ka socdaan waxuu rabaa maraykanku inay kaarkooda turubkooda qarsadaan qoladaana wax u sheegaan qoladaasna wax u sheegaan kadibna wax ay isleeyihiin meeshaas waa lagu heshiin karaa ay kala soo dhex baxaan horena maraykanku waa u sheegay ruushka dhul in loo ogol yahay gobolka Donbass iyo runtii meeshan la yiraahdo Crimea inaan lagu wada hadlinba ee wada hadalku yahay ruushku goboladan kaloo qabsaday maxuu ka yeeli maxaa laga yeeli iyo damaanad la siiyo jiritaanka Ukraine maxaa laga yeeli waa qodobada ugu adag ee meesha yaalla Yurubna dood iyo talo midna kuma laha waana ka sii xagjisay Ukraine maba ay ogolaba ruushku in mataqaanaa magaranaysaa oo wax ku dagaalka uu qaaday oo wax ku helo ma doonayaan laakiin su'aal baa meeshaan taagan su'aashaasna daawadayaashaan u daynaya reer Yurub maraykan la'aantii ruush ma iska celin karaan mase u babac dhigi karaan su'aasha labaad waxay tahay NATO xaaladeedu maxay noqon doontaa maxay ku dambayn doontaa ma urur burburayba mase horta wuu dhaawacan yahay ururkii NATO la dhihi jiray oo maraykanka ayaa dhaawacay laakiin jiritaankiisa ayaa su'aalo badani ka taagan yihiin wixii ka soo kordhana isha ayaan ku hayn doonaa halkaanaad kala socon doontaan haddii ilaahay idmo haddaanu dhinaca kale aadno qodobkeena ugu dambeeya galbeedka Asia maanta waxaa la leeyahay duqeymo ayay ka geysteen iyadoo weliba wadaxaajoodii wada hadal socdo waddanka Lubnaan ay duqeeyeen meel bay goob dhan oo dhismayaal ay ku yaaleen ayay burburiyeen waxayna Israa'iil ay runtii pressure iyo cadaadis weyn ku haysaa xukuumadda Lubnaan oo ay leeyihiin nimankii Hezbollah waa inay hub ka dhigtaan xaaladdu aad bay u adagtaa laba waxyaabood baa dhici karaa dagaalkan inuu socdo siina xoogaysto Israa'iiliintuna ay lug ku galaan Lubnaan oo mar kale isku dayaan inay qabsadaan waa wax dhici kara waxaa kaloo laakiin dhici kara oo hubaal ah in dagaal sokeeye laga abaabulo waddanka Lubnaan gudihiisa sababtuna waxay tahay hadday isku dayso xukuumaddu inay Hezbollah oo kale isku samayso waxa weeye arrin aan la filan karin ayaa halka ka imaanaysa qasaxa suuqi weli waa ka socdaa dadku weli waa dandaran yihiin waxaana laga hadlayaa hadda fayskii labaad in loo gudbo Israa'iil oo weli waxa suuqaysa weli ma hayno fayska labaad ciidamada la keenayaa layidhi ciidamadii lama hayo wax la isku raacsan yahay lama hayo waa laga aamusan yahay waxaa loo fasaxay Israa'iil inay xasuuq halkaa ka geysato saxaabay waqtigan ayaa maaragtay laga dhammaaday intaasaan rabaa inaan maanta kusoo gabagabeeyo qaybaha kale ee dambe ayaan wixii dhammaystira
kusoo dari doonaa aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan idinka codsanayaa barnaamijka inaad maaragtay la wadaagtaan dadka aan weli kusoo biirin channelka adinkana aad iyo aad baad umahadsantiin intaan kaloo kale isugu imaynana waxaan idinkaga tegayaa jimco wacan oo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi